بركاته خيارته دمانتي وين وضع السلامي سلامكم بعد إن شاء الله ورا حنوقصو هذا الله حنكسو هذا إني كتشون فعلك يا قبل ذلك الدوان أو كل حجرة printers or your devices, your printers, programs and features and internet options وحيالها حنكسو هذا الله وها playlist قديم وضو الله من كرتا and end of this video now إن شاء الله وتكهلي كرتا يعني maanta waxaynu taabanaynaa device manager ku sidiisaba control panelka ka mid buu yahay haddii aad tagtid keyboardkaaga calaamadda windowga iyo x oo shortcut haddaad tagtid device managerka halkana waad ka heli kartaa oo waa stand alone application waa application keligii u taagan labada dhinac buu ku jiraa device manager ku shaqadiisu waxay tahay inuu hayo adeer aniga device manager kan available device managerada ku jira computerkayga device managerka applicationada ku jira oo dhan waa kuwan halkan aad ka arkaysaa waa computerkaaga calaamadda haddii aad ku dhifatidna wuu isxirayaa haddii kale soo saartidna iyagoo dhan way soo wada furayaan marka device managerka waxaa ku jira driveradaadu dhan baa ku jira driverku muxuu yahay driverku waa simple confuse ha ka qaadin driver oo dhan shaqadiisu hal shay buu qabtaa inuu softwareka iyo hardwareka uu isfahansiiyo maxaynu ka wadnaa hardwareka iyo softwareka inuu isfahansiiyo waa translator wey haddaan xaggan midigta imaado oo bluetoothka aan tago bluetoothkana haddana wuu ii xidhiidhsan yahay laakiin wuu baarayaa oo bluetoothka markaad tagtid computerka wuxuu raadinayaa bluetooth new device haddaad rabtidna halkan aad ku xidhiidhin kartaa computerkaygu bluetoothkan markaan xidhiidhinayay inuu helo wixii kula siiyey oo softwareka bluetoothku inuu computerku xidhiidhiyo u sahlay waxa weeye waa driverka shaqadiisu waa intaa driverka haddaynu fahanay shaqadiisa option monitorra haddaad monitor rabtid inaad computerkaagu u xidhiidhiyo bluetooth baa u baahnaanaysaa printeradii bluetooth bay u baahan yihiin keyboardkii mousekii ayi hardware oo computerkaaga uu u baahan yahay driverna wuu u baahan yahay sidaa daraaddeeda computerka waxaa ku yimaada drivero markii ugu horeysaba lagu install gareeyey oo kameriga soo saaray uu markii horeba uu ku keeno sida shaqada loogu fududeeyo marka driveradaasu way ku yimaadaan qofkii kale oo hardware kale computerkiisa ku xidhiidhanaya driverada hadduu rabo inuu download gareysto hardwareka shirkadda uu kasoo iibsaday websitekeedu driverkana way gelisaa halkaas qofku ka download gareysanaya haddaan bluetoothkayga halkan fiiriyo oo aan furo waxaan isticmaalayaa touchpad baan isticmaalayaa dhinaca midigta laba farood haddii aan ku riixo optionadan uu soo saaraya optionadan haddaynu rabno inaynu si wacan u wada aragno properties baynu tegi karnaa marka property aynu tagno device status buu siiyey haddana wuxuu siiyey bluetoothkaygu inuu caadi u shaqaynayo proper u shaqaynayo oo aniga isticmaalaya halkan bluetoothka kameriga leh iyo adu detailada buu kaga hadlaya driverka aynu tagno driverka halkan information guud buu kaa siinayaa sidiisaba waxyaalaha hadda halkaas iyo waxaa ka mid ah kameriga leh xilligii ugu dambeeyay la update gareeyay versionka uu marayo marka sidaa daraaddeeda driverku waxaa laga yaabaa marmarka qaarkood driverka badanka sidiisaba haddana uu optionaduna siiyey waxa weeye driver update badanka cillad kugu timaada mooye lama update gareeyo faraha laga qaaday sidiisaa loo daayaa laakiin lacala haddii aad update gareysid oo aad istiraahid ba iska update garee isagoo kuu shaqaynaya cillad hadduu kugu keeno rollback buu ku siinayaa option markaad update gareysid rollback option buu ku siinayaa sida kii hore ugu laabatid ood ku laaban kartaa haddii aad lacala new hardware intaa aad computerkaaga gelisid aad ku xidhiidhisid driver cusubna soo samaysatid oo computerku cillad uu kugu keeno ama slow iyo dysfunction inuu kugu keeno
waxaad samayn kartaa disable kan aad u isticmaali kartaa oo waad joojin kartaa. haddii aad rabtidna uninstall baad ku dhufanaysaa waad ka tuuraysaa. si guud device managerku wuxa uu hayo oo store gareeyo waa driveradaada oo dhan. driveradaadana waxaynu soo sheegnay computerkaaga hardwarekiisu inuu fahmo softwareka driver buu u baahan yahay. hardware kastaba driver buu u baahan yahay. printer haddii aad hadeer soo iibsatid cusub, computerkaaga markaad ku xiriirinaysid waxa xiriirinaya oo hogaanka u ah waa driverka weeye. marka driverka muhiimadiisu waa intaa. haddii aad rabtidna halkan aad ka manage garayn kartaa driverka. badanka cilad markuu driverka uu hayo marka sidan oo kale usoo gashay device managerka, calaamad yellow ah iyo sign buu ku tusayaa inuu driverkaas uu balaayeysan yahay ama wax ka maqan yihiin. marka haddeer alxamdulilah anikuwagu caadi bay wada shaqaynayaan. device managerka fawaa'idiisuna waa intaa wey. si wacan baan dhammaantiin idin wada salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.